bismillaahi araxmaani araxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan idiin soo gudbinaynaa qiso cajiib ah. cunugii yaraa ee hooyadii dhimatay isagana u dhintay darxumada. qisada cunugan ayaa bilaabatay saacadihii ugu horreysay ee dhalashadiisa. maalintii uu dhashay ayaa waxaa geeriyootay hooyadiis. aabihii waxa uu ku wareeray sidii cunugan yar uu u tarbiyeen lahaa, waxa uuna aad ugu mashquulsanaa shaqadiisa habeen iyo maalin. kadib waxa uu go'aansaday aabbaha inuu u geeyo cunugan habaryartiis si uu ula noolaado carruurteeda. aabbihii waxa uu guursaday 7 bilood xaaska leh kadib dhimashada xaaskiisii hore, waxa uuna u soo wareejiyey cunugiisii yaraa guriga xaaskiisa si uu ula noolaado labadooda. 3 sano iyo dhowr bilood kadib, xaaska Allah waxa uu siiyey 2 cunug oo kale ah, gabar iyo wiil. hase ahaatee eedada cunugani haysa ma aysan ahayn mid xil iska saarta wiilkan yar ee hooyadii ay dhimatay. waxa ayna mar waliba ka adeejin jirtay gabadha ka shaqaysa guriga, waxa ayna amar ku sii jirtay in ay xanaaneyso, arrimihiisana ay la socoto iyo arrimaha guriga guud ahaan sida nadaafadda iyo raashin karinta intaba. maalin jawiga uu yahay mid aad u qabow, waxa ay eedada u yeertay reerka ay ka dhalatay iyo ilmaheeda casho aad loo soo diyaariyey oo martiqaad ahna way u diyaarisay. markii ay yimaadeen waxa ay bilaabeen in ay carruurtii ay dhashay eedada marxabeeyaan, islamarkaana ay ximbaaraan iyaga oo ku qaabilaya si farxad ay ku dheehan tahay, halka wiilkii yaraana ay iska dhinac marayaan. iska daa in ay ximbaaraane xitaa aanan eegin dhinaciisa. waa arrin cajiib ah. wiilkii yaraa ee markaasi hooyadii ay geeriyootay waa ay dayaceen, wax xil ahna iskama saarin dhammaantooda. xitaa gabadha ka shaqaysa guriga oo loo xilsaaray cunugaani yar xanaaneyntiisa waxa ay ku mashquushay maalinta hawsha guriga, waa ayna hilmaamtay oo dayacday wiilkii yaraa ee hooyadii dhimatay. dadku waxa ay yihiin kuwo ismarxabeynaya islamarkaana aad u faraxsan. eedada iyo reerka ay ka dhalatay iyo weliba carruurtooda waxaa ka muuqda guriga farxad. hase ahaatee wiilkaani yar wax farxad ah kama muuqato, oo waayo ma haysto hooyo markaasi oo dhabteeda ku ooyo. waxaa isku yimaaday reerka eedada, waxayna bilaabeen in ay wada kaftamaan ilaa laga gaarayo xilliga cashada. wiilkii yaraa waxa uu bilaabay in uu fiirinayo miiska cashada ay saaran tahay, isaga oo ay ka muuqato gaajo aad u daran. waxa uuna damcay in uu soo qaato ama uu soo qabsado macmacaanka meesha saaran si uu isaga baabi'iyo gaajada haysa. hase yeeshee eedadii markay aragtay wiilkii yaraa oo u gacan taaganaya waxyaabihii ay u diyaarisay reerkeeda ayaa aad u carootay. waxa ayna ku tiri iyada oo cara ka muuqata, bax oo tag banaanka, maxaa halkaani ku keenay? saxan yar ayay ugu shubtay xogaa bariis ah iyadoo markaasi ku tiri ordoo bax ku cun banaanka. wiilkii yaraa waxa uu qaatay saxankii bariiska ku jiray isaga oo niyad jabsan islamarkaana aad u oynaya. iyagiina waxa ay bilaabeen in ay raashinkoodii cunaan. wiilkii yaraana way ka tageen, waxa ayna hilmaameen in uu u baahan yahay naxariis iyo garab istaagid, loqoslid iyo weliba in uu la mid yahay carruurta kale ee markaasi dhabta u saaran. wiilkii yaraa waxa uu bilaabay in uu cunayo bariiskii saxanka loogu soo shubay isagoo dareemaya qarqariyo iyo qabow. waxa uuna ku tiirsaday albaabka dhinaciisa si uu gambaad uga dhigto dabaysha iyo qabowga aadka u daran ee dhacaya, maadaama uusan haysan dhar adag oo ka celiya qabowgaasi, islamarkaana uu yahay cunug aanan u adkaysan karin qabowgaasi dhacaya. cunugii yaraa ee hooyadii dhimatay qof iska su'aashay ma jirin meesha uu jiro iyo xaaladda uu ku sugan yahay intaba. dhammaantood waxa ay hilmaameen dardaarankii rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu ka dardaarmay carruurta agoonta ah. gabadhii shaqaalaha ahaydna waxa ay ku mashquushay shaqadeedii. wiilkii yaraana waxa uu ku hurday bannaanka iyadoo uu dhacayo qabow aad u daran, islamarkaana dadka waaweyn xitaa aysan u adkaysan karin. reerkii eedada way soo baxeen markii ay soo cuneen martiqaadkii loo diyaariyey. kadib eedadii waxa ay ku amartay gabadhii shaqaalaha ahayd in ay soo nadiifiso guryaha, waxayna isku diyaarisay jiif. iyadoo aanan dareensanayn wax dhibaato ah ayay sariirteeda tagtay. waxaa soo laabtay ninkeedii, waxa uuna weydiiyey wiilkii yaraa, waxayna ku tiri waxa uu la joogaa gabadha shaqaalaha ah, iyadoona ogeyn in uu la joogo iyo in kale. ninkii wiilka dhalay waa uu iska seexday isagoo aanan wax dareen ah qabin. markii uu hurday ayuu waxa uu riyo ku arkay xaaskiisii hore, waxayna ku tiri war wiilka ii ogow. wuu soo booday isaga oo naxdin ka muuqata. waxa uuna xaaskiisii ku yidhi aawe wiilkii? waxay ku tiri waxaa hayso gabadha shaqaalaha ah, mana isku dhibin in ay soo xaqiijiso. wuu iska seexday ninkii. waxa uuna mar kale ku arkay riyada xaaskiisii hore oo ku leh war wiilkayga ii ogow, war wiilkayga ii ogow. wuu soo booday isagoo naxsan. waxa uuna hurdada ka toosiyey xaaskiisa
oo ku yidhi war xaguu joogaa wiilka. xaaskii waxay ku tiri iyada oo doonaysa in ay dejiso, war waxba ha ismurjinin, arrintana haweeneynin, waxaani waa qarow aad ku aragtay hurdada ee wiilkaaga waa uu nabad qabaa ee iska jiifo. markaas ninkii waa uu degay wuuna seexday. mar saddexaad ayuu xaaskiisi ku arkay riyada, balse markaan waxa ay ku tiri wiilkaygii waa ay u dhammaatay. ninkii ayaa hurdada ka soo booday, waxa uuna bilaabay inuu wiilkii raadiyo, isagoo weydiiyey gabadhii shaqaalaha ahayd. waxa ayna ku tiri ma arkin. kadibna waxa uu bilaabay inuu aad u qayliyo, islamarkaana uu ku wareego guriga dhexdiisa. hase ahaatee ugu dambayntii waxa uu helay wiilkii oo nafta ka baxday, bannaankana yaala, jirkiisana uu la dildilaacay qabowga dhacaya dartiis, islamarkaana dhinaciisa uu yaalo saxankii bariiska ku jiray uu ka cunay xoogaa yar. subxaan allah, rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay aniga iyo ruuxa kafaala qaada agoonka waxaan jannada ku nahay labadaa far oo kale. waxa uuna tilmaamay farta murugsatada iyo farta ku xigta. rasuulkii allana waa run sheege.